السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان ولا لها مسلمين تا إن قحرا إلا السعودي أنتي أنسود لين بشان رمضان تاريخ كسب سنة أنا وهذا لأني الدولة العثمانيين تا حاوي ما أنتو حمرنا حلقة دي شنات مركا wixii ka horreeyay xalqooyinkii boqor walba suldaan walba intii uu soo waday oo uu soo maamulayay oo uu soo hogaaminayay dowladda cuthmaaniyiinta waan soo hadalnay marka cuthmaaniyiinta marxalado kala duwan ayay soo kala martay oo ay ku kala hogaaminayeen ninba ninka kale ama uu ka dhaxlayo aabbo walba wiilkiisa marka maanta waxaan ka hadlaynaa waxay tahay xalqadii shanaad aan ugu hadlaynaa boqorkii afaraad ama suldaankii afaraad ee dowladda cuthmaaniyiinta. dowladda cuthmaaniyiinta saad la socotaan in badan aan hore soo sheegnay idinkana taariikhda aad ka akhrisataanba waxa weeye waa dowlad kusoo dadaashay maaragtay kuna taagnayn waagaas loona baahnaa xilli munaasibna kusoo aaday shucuubta islaamka ay aada ugu diirsadeen in ay maaragtay u noqoto meel ay dadkaas markaas ku intifaacaan oo ay maaragtay ku badbaadaan marka sida hore ka daawan kartaan xalqooyinkii horeba oo aad ku arki kartaan dowladda cuthmaaniyiinta waxa weeye waxa uu ahay dad lagu soo barbaariyey dhaqan islaam lagu soo tarbiyeeyey hoggaanka iyo dowladnimada iyo nidaamka dawliga marka maanta waxaan ka hadlayna waxay tahay boqorkii la oran jiray boqorkii shanaad weeye boqorkii shanaad boqorkii afaraad ee la oran jiray birinji yani yildirim biyazidka koowaad yani saa hore usoo sheegnay dowladda cuthmaaniyiinta waxaa aas-aasay cuthmaan waa uu hirgeliyey waxaa kala wareegay orhan waa uu sii waday waxaa kala sii wareegay muraadkii koowaad waxaa kala sii wareegay oo maanta ka hadlayna waxaa weeye yildirim biyazid marka yildirim biyazid waxa weeye waa boqorkii afaraad weeye yildirim biyazid wuxuu dhashay kun saddex boqol siddeetan iyo sagaalkii iyo yani kun iyo saddex boqol siddeetan iyo sagaalkii ayuu dhashay wuxuuna dhintay maya wuxuu ninki la yidhaahdo wuxuu dhashay kun saddex boqol iyo lixdankii ayuu dhashay yildirimka koowaad markii laga hadlayo taariikhda ay xusayaan ama profesorada taariikhda ka qora dowladda cuthmaaniyiinta waxa weeye kitaabo badan baa laga qoray aathaar badan baa laga qoray waxyaaba badan baa laga qoray marka dowladda cuthmaaniyiinta waxay soo martay marxalado kala duwan marka maanta yildirim biyazidkaan sheegayno wuxuu yahay waa boqorkii afaraad ee hogaamiya dowladda cuthmaaniyiinta marka wuxuu dhashay isaga kun saddex boqol iyo lixdankii wuxuuna ku dhashay magaalada la yidhaahdo edirne ilaa uu markaas uu ku dhiman doono magaalada la yidhaahdo agshahiir 8 maarso kun afar boqol iyo saddexdii marka ninka la yidhahdo yildirim biyazid wuxuu xilka kala wareegay saan shalay maaragtaan soo sharxeen ugu soo hadlayna xalqadii shalay uu aabihiis kala wareegay muraadkii koowaad yani muraadkii koowaad uu daawendigaar dhowran jiray marka yildirim xukunkiisa wuxuu bilowday kun saddex boqol siddeetan iyo sagaalkii ilaahay wuxuu maamulayay ama hogaaminayay dowladda cuthmaaniyiinta kun afar boqol iyo labadii yildirim markiis uu xilkii intuusan la wareegin ama saldanada uusan la wareegin aabihiisu kala dhaxlin wuxuu ku maqnaay gobol wuxuu marka intii isagana dee aabihiis uu ku jiray jihaadka iyo faafitaanka isagana waxaa loo xil saaray inuu kasoo warqabo uu maaragtay aado oo soo qiimeeyo dhulkan ay dowladda cuthmaaniyiinta hore u qabsatay hadduu ilaahay ku run yahay anatolia iyo dhankan carabta asiada markii ay maamulka cuthmaaniyiinta ay haysteen asiga loosoo diray layidhi bal ka wardoon uu mas-uul ka ahay marka markii loo sheegay yildirim hogaanka ama hadduu ilaahay ku run yahay isaga sugaysa isaga dabcan asoo safar ku maqnaa lagu yidhi aabbaha baa geeriyooday aabbaha maaragtay waa shahiiday dagaalkii kosovo ku dhintay isla markii waa loo wacay waa yimaaday dadkii isaga marka marjaca aabihiis kula jiray ee xukunka la waday iyo hawsha la waday talada la waday waxay hayeen waxay kula taliyeen ama ay ku isla garteen in xilka loo dhiibo
yildirimka koowaad. marka yildirim markuu xilkii isagoo aabihiis maaragtay ka maqan aabihiis uu shahiiday oo ninkii askarigii shal aan soo sheegnay uu dilay uu yimaaday magaaladii markaas hadduu ilaahay ku run yahay magaalo madaxda cuthmaaniyiinta. yildirim waxaa lagu yidhahda dowladdii aabbaha aad ka dhaxshay baa ku taallo inaad maaragtay sii hogaamiso oo sii wada ayaa lagaa rabaa. isaga marka waxaa jiro walaalo badan oo la dhashay baa jiro, dad badan oo isaga maaragtay walaalo ah baa jiro. dowladda cuthmaaniyiinta waxa weeye waxay soo martay xaalado kala duwan, taariikho kala duwan bay soo martay. juhdigaas marka culeyska sugayay ninka la oran jiray orhan waa uu kasii weynaay, yacni ninka la yihahdo aan dhehe yildirim bayazid. sababtoo ah dhinaca waxaa u taalla dagaal lagula jiray nimankan yurubiyaanka, dhinaca waxaa taalla nimankii lagula jiray dagaalka waxaa jiray rag ka hoos shaqeynaya dowladda cuthmaaniyiinta oo isugu jira jaasuusiin, isugu jira yahuud iyo armenia. marka yildirim waxaa sugaysay xaalad adag uu kula dagaalami lahay, dagaal gudaha iyo dagaal dibadda ah nimanka cadowga ku ah dowladda cuthmaaniyiinta. marka yildirim markii loo wacay loo sheegay geerida aabihiisa muraad inuu shahiiday, isla markiiba loo yiri haddii saldanada adiga la wareegaya walaalkiis baa loo wacay, waa loo sheegay in walaalkiis maaragtay dhiiri walaalkaa kaaweyn baa maaragtay xilka la wareegaya oo saldanada sii hogaaminaya. xoogaa khilaaf waxaa ka dhaadhashay marka caailada dadka qaar waxay ku talinayeen walaalkiis nin la yidhaha yacquub baa la dhashay inuu yacquub asiga hogaamiyo, dadka qaar waxay leeyihin yildirim baa hogaaminaya. marka hogaanka xoogaa iskhilaafitaan yar waa jiray, laakiin haddana waxaa jira dad ayaga isugu noqdaan oo ay maaragtay dadkaasi ku kala hogaaminayaan oo ay ku kala dejinayaan oo ku kala nidaaminayaan, nin walbaba maqaamkiisa iyo xilkiisa iyo mansabkiisa loo kala ilaalinayo. marka yildirim waa uu adeecay ama waa aragtay hadduu ilaahay ku run yahay aqbalay fikirkii loo soo jeeday ee ahay in dowladda cuthmaaniyiinta uu hogaamiyo oo meeshiida uu kasii wado jihaadka. marka isla markii marka ninka la yidhaahdo yildirim wuxuu ka bilaabay shaqadiisii ama uu ku dadaalayay oo uu kusii horumarinayay dowladda cuthmaaniyiinta in uu sababta dagaalka lagula jiro nimankii galbeedka ahaa iyaga loo kaadiyo oo wixii markaas askarta ku shiideen lasoo qaado, dadkii xoogaa ay kala degaan. isaga marka ninka la yihahdo yildirim wuxuu usoo noqday dhankani anatolia oo laga soo sheegay niman badan oo uu hogaaminaya kala duwan oo ay khilaaf ka hoos bilaabeen dowladda cuthmaaniyiinta. waxay bilaabeen in maaragtay magaalooyin iyo gobollo kala duwan intay isku keenaan ay dhahaan waxaan ka hoos baxaynaa talada dowladda cuthmaaniyiinta. marka ninka la yihahdo yildirim intuu horta sii faafin lahay dowladda cuthmaaniyiinta ama uu sii wadi lahay awoodda cuthmaaniyiinta, waxaa horta markuu hores uu ka bilaabay markii uu ka dhaxlay saldanada abihiis inuu kusoo noqdo dhankan carabta oo anatolia iyo suuriya iyo wadamadan kale marka asiga hoos yimaaday inuu horta ka zuuliyo dadkan ka hoos wada khilaafka, ka hoos wada burburinta dowladda cuthmaaniyiinta oo markaas ka shaqeynayo iyaga naftirkooda ahay rag jaasuusiina ay ka socday dowladihii kasoo jeeday ama cadowyadii kasoo jeeday dowladda cuthmaaniyiinta. marka yildirim bayazid wuxuu kusoo guuleystay gokow wuxuu kasoo bilaabay goboladii markaasi uu nimankii ayaga ka hoos bilaabay isaga xukunkiisa yiri annaga ma adeecayna, annaga xukun gooniya u bilaabayna yiri, xukun gooni annaga la wareegayna. marka isaga dheg jalo uma siin taliyaashiisa iyo ciidankiisa isku dabaritay waxay bilaabeen marka dawaafkii ahay ama wareegii ahay in horta lagu soo taxqiijiyo oo lasoo nidaamiyo oo lasoo dardargeliyo nimankii yani shacabkii iyo dowladdii markaas uga soo tegay ay cuthmaaniyiinta ku maamulaysa goboladaas. yildirim marka goboladii ugu wareegay oo kale markaan qiimeyno oo hadda taariikhda ku xisan waxaa kamid ah gobolka magaalada la yihahdo sivas, waxaa kamid ah magaalada tokat, waxaa kamid ah magaalada la yihahdo malaadki, magaalooyin kala duwan oo nimankii markaas asiga kasoo hoos kacay ee xukunka la wareegay isla markii intuu kusoo noqday xukunkii ka ceshtay oo xasuusiyey in dowladda cuthmaaniyiinta ay shaqeynayso, in dowladda cuthmaaniyiinta weli ay nooshahay. marka nidaamkii ahaa in horta khaa'imiintii gudaha ku jiray la nadiifiyo waa uu ku guuleystay. kadib wuxuu usii jihaystay magaalada la yidhaahdo istanbul. marka istanbul waa markii u horreysay oo duulaan lagu qaadayo si looga xoreeyo gaaladii markaas haysatay oo nimankan hadda Greek iyo Bulgaria iyo wadamadaas Yurubtaas iyo niman waxaa jira markaas Rumeli la yidhaahdo iyo gaalo iyo maaragtay ittifaaq ka dhexeeya ahaa in dowladda cuthmaaniyiinta dhul laga qabsado, in dowladda cuthmaaniyiinta lala dagaalo, in dowladda cuthmaaniyiinta hadduu ilaahay ku run yahay laga hortago horumarka iyo nidaamka ay ka wado caalamka. marka isla markiiba wuxuu afka saaray inuu xornimadeeda u ka shaqeeyo ama duulaan uu ku qaado dowlad magaalada la yihahdo istanbul oo istanbul markaasi
ay u ahayd magaalo istaraatiiji ah magaaladaas isku xirta yurub iyo asia waxaana dhex marta badda la yidhaahdo marmara waxaa dhinac ka xigta badda la yidhahdo balaxi marka dowladda cuthmaaniya marxaladaas soo martay marka yildirim bayazid falsafadiisa waa ka dooneed boqorada si korreyso kow isaga inuu dowladda sii faafiyana uu waday khaa'imiinta ama dadka isaga dowladdiisana burburinaya ee ka hoos shaqeynaya inuu iska zuulin oo ku dadaalaya marka ma ahayn nin meel fariisanaya dagaalkiina waa geliyay gadaalna usoo noqonayo magaalooyinkii uu xoreeyey magaalooyinka dadkii ka dambeysay inuu kusoo noqdo oo qiimeeyo oo axwaashooda oo ka warqabo oo ku dadaalaya marka yildirim bayazid waxaa lagu xasuustaa inuu yahay nin aada u mayal adag u dadaal badan u karti badan dabcan siduu ka dhexla aabiyaashiisa marka uu ku guuleystay inuu nidaamiyo oo uu ka zuuliyo nimankii la oran jiray aaminsanay fikirka ah inay ka hoos baxaan dowladda cuthmaaniyiinta inay la midoobaan nimankan yurubka reer galbeedka waagaas dowlado lahay oo isugu jira jermal iyo faransiis dabcan hadda dowlado ahaan u jiraan laakiin magac ahaan waagaas iyo jinsiyad ahaan ama qoomiyad ahaan waa loo jiray marka dowlado kala duwan iyagoo leh dabcan waagaas waxaa jirta wax la yihahdo boqortooyooyin kala duwan oo ay wadamadaas lahaayeen reer galbeedka marka ninka la yihahdo yildirim cadowgiisa ugu weyn markaasi isaga la dagaalami doona ee dagaal si toos ugu furaya wuxuu ahay ama uu dhib carqalad ku ahayd nimanka la yihahdo niman jarmal boqortooyada jarmalkii boqortooyada faransiiska iyo dowlado kale oo maaragtay iyaga hoos yimaada marka yildirim bayazid taariikhdiisa markii laga sheekeynayo waxa weeye waa nin taariikh lagama qoro nin aada u nastay ama si raaxale kusoo hogaamay mahayne nin wuxuu ahaa dagaal iyo juhdi kusoo waday dowladda cuthmaaniyiinta marka wuxuu sii wada waxay ahayd inuu kusii faafo yurubtiina uu sii gaarsiiyo dowladda cuthmaaniyiinta oo uu juhdigeeda sii geliyo dhankan wadamada islaamka ah ee carabta isugu jiray asiana iyaga laftirkooda way adeecsanaan laakiin haddana waxaa jira dadka dhex shaqeynaya marka saad la socotaanba dowlad walba ama nidaam walba oo la dhiso dad baa waxaa ka shaqeeya ama nidaam darro yani inay burburiyaan ku dadaala iyagoo ku qarxinaya cadowga ee markaas kasoo horjeeda dowladdaas dhisan yacni dowladda cuthmaaniyiinta cadow noocaasa bay lahayd oo gudaha ah iyo mid dibad ah marka yildirim wuxuu ugu guuleystay inuu nimankaas ka soo nadiifiyo oo uu sheekadooda soo afjaro kadibna uu bilaabo markaas waxaa u dhinay dabcan waxaa kadib la furan doonaa magaalooyinka liir ankara naftirkeeda iyo magaalooyin badanba waxaa laga furan doonaa dad nimankan maaragtay haysa markaas boqoradii waagaas ka dhisnay marka dowladda cuthmaaniyiinta marxaladaasi soo martay yildirimna wuxuu hoggaan u ahay in ay cuthmaaniyiinta faafitaankeeda ay kasii wado dhankan asia iyo dhanka yurubba labada dhinacba ay kusii faafto yildirim bayazid marka waxaa lama huraan noqotay ama carqalad ku noqday dadkii isaga ehelka u ahay sida in adeerkiisoo kale sida dadka asiga maaragtay kula jira marjaca dowladda cuthmaaniyiinta oo khilaaf ka kala abuuraya isaga dowladda dhexdeedu dabcan dana gaara wata marka isaga dheg jala uma siinayn wuxuu ahaa hadafkiisi inuu dowladdiisa sii hogaamiyo oo sii horkaco oo nidaamkeedii dadaalkeedii kusii guuleysto dabcan isaga hadda intuu xilka u hayo waxay ahayd ama uu la wareega xukunka 1389 ilaa iyo 1402 marka intuu hayaa waxay tahayba waqtigiisa marka asiga kuma beerdarin inuu ka daba wareego dad maaragtay bahalkii keliya waa nin jihaad iyo juhd iyo dadaal ku jira marka boqorka la yiraahdo yildirim bayazidka koowaad sidaan shalay hore usoo sheegnayna magacyada dowladda cuthmaaniyiinta boqorada soo kala hogaamiyey sida muraadkii koowaad yildirimkii koowaad cuthmaankii koowaad waxaa loogu magacda waxay tahay waxaa awlaadooda ka mid ah ama xukunka kaga dambeyn jiray oo ugu magac dareen dadka waxay ahayd in ay dhahaan oo kale cuthmaankii labaad cabdulxamiidkii labaad orhaankii labaad hadduu ilahay kuwan yildirim bayazidkii labaad marka system noocaasa ku dhisnay dowladda cuthmaaniyiinta ninka la yihahdo marka yildirim siyaasadiisii waa uu sii wadaa nimankii yurub kasoo jeeday ee dowladihii yurub ee boqortooyada ahayna iyagana dagaal bay ku hayaan oo ay waa u midoobayaan marba markasi dambeysaba duulaankiisii waa uu sii badanaya marka waxaa dhacday dhankan badda balaxia oo ay kusii socday ilaa iyo yani midaan kale marmar loo yaqaano waxaa duulaan adag kusoo qaaday lama huraan ay noqotay ama afka lagu saaray nimankii la oran jiray boqoradii la oran jiray hadduu ilaahay ku oran yahay faransiiska nin la yidhahdo waxaa hogaaminaya markaas sigismund oo uu horkacayay dowladda yani boqortooyadii faransiiska waxaa garab ku siinaya niman la yidhaahdo jarmalka oo jarmaniyiina iyaga naftirkoodana duulaan ku ah dowladda cuthmaaniyiinta kana soo horjeeday in la dhiso
nidaam dawli ah oo islaami ah ama nidaam dowladda cuthmaaniyiinta. marka dabcan inta ay sii faafayso cuthmaaniyiinta waxaa jirta magaalooyin yaryar oo iyaga naftirkooda nimankan gaalada kusoo dilay ay qabsanayaan oo iska degmooyin yaryara. marka Yildirim isaga kagama uusan dabaharine juhdigiisii waa meeshu kasii waday, meel alla meeshay soo galaanba waa kasii saaray, meelahay joogaan ugu sii tagay. marka waxaa jirta marka magaalo la yiraahdo oo laga qabsaday hadduu ilaahay kunan yahay magaceeda la yiraahdo Nibolu, caan bay ka tahay dalka Turkiga. Nibolu waa magaalo markaasi ay nimankan kusoo ifbaxeen ama cadowtinimada dhabta ay uga bilaabayaan. hadba cadow bay lahayd dowladda cuthmaaniyiinta, marxalado kala duwan bay lahayd oo saan hor usoo sheegnay Byzance iyo dowlado kala duwan. marka ninkan Yildirim Beyazid qarnigiis waxaa kusoo aaday niman la yiraahdo ama xilligiisi waxaa cadow oo ku ahay inta badan nimankan hore soo sheegnay Faransiiska iyo Jarmalka. marka Faransiiska boqortooyada waxaa hogaaminaya nin la yiraahdo Sigismund oo boqorka ahay. marka wuxuu aad ugu dadaalay waxay ahayd in ninkan Yildirim Beyazid uu ka hortago in asiga maarata meesha ka saaro xukunka cuthmaaniyiinta, la burburiyo nidaamkeeda, la burburiyo magaalooyin badan laga qabsado, hawsha meesha ka socoto. marka sidaan hore usoo sheegnay dagaalka ninka la yidhahdo Yildirim saddex geesood weeyo. marna wuxuu la dagaalamay nimankii gaalada, mar wuxuu la dagaalamay nimankan jaajuusnimada hoshiis ka shaqeynaya, marna wuxuu dagaal kula jiraa nimankan walaaladiisa ha ahaado ilma aadaradiisa ama marjac ay ku midaysan yihiin in ay maaragtay uu ka hortago dagaalkooda, yani khilaafkooda. khilaaf baa la abuuraya, askartii baa la kala jabinaya. dabcan askarta qaar waxay leeyihin annaga Yildirim ma adeecsan, waa adeecsannahay walaalkiis. kuwa qaar waxay leeyihin adeerkiis baan adeecsannahay. marka khilaaf iyo isjiidid noocaasa wuxuu ka dhex jiray dowladda cuthmaaniyiinta qarniga markii lasoo gaaray ninka la yidhahdo Yildirim. dabcan xilliyada sii socda ama xalqooyinka soo socda waxaan kusoo sharaxi doonaa waxay tahay boqorro badan iyaga dhexdooda isdilay oo isku dagaalay xukunka dowladda cuthmaaniyiinta. waxaas waxa ka dhex shaqeynaya waxaa weeye waa shaydaan iyo dad maaragtay kaga faa'iidaysanaya inay isku jabiyaan xukunka dowladda cuthmaaniyiinta. sababtoo ah haddii nin boqora qayb ay raacdo boqor kalena qayb ay raacdo waxaa waa cuthmaaniyiinta labay kala noqonaysaa. markaasna waxaa fudeed u noqonaya nimankii gaalada ahaa ee Faransiiska iyo Jarmalka iyo dowladihii kasoo jeeda cuthmaaniyiinta in ay si fudud garab garab ama qayb qayb usoo weeraraan oo ay jabiyaan dowladda cuthmaaniyiinta. marka dowladda cuthmaaniya marxaladaasi soo kala marta. marka waxaa dhacday dagaalkii marka aan sheegayna in dagaal dhexmara ninka la yidhaahdo Yildirimka koowaad inuu la dagaalamo qoladii la oran jiray Faransiiska iyo Jarmalka. marka magaalada Nibolu waxaa ka dhacayo dagaal markay tahay 25 Sebtembar 1396 waxaa ka dhacay dagaal la yiraahdo dagaal aad isugu farajabay oo ciidamadii isugu yimaaday. dhinac dowladda cuthmaaniyiinta kaligeed ku dagaalamaysa, waxaa kasoo horjeeda dowlado marka ittifaaq oo u sheeg oo isugu jira gaalo iyo nooc walba oo nimankan Asianka hadda indheerta naftirkooda waxay lahaayeen boqorro waagaas. waxaa jiri qolo la yiraahdo waxaa jiri jirtay Mongolia ama Mongolistan. marka iyaga naftirkooda waa isku yimaadeen, waxay duulaan ku ahaayeen dowladda cuthmaaniyiinta. dagaalkaas marka ninka la yiraahdo Yildirim wuxuu ku dagaalami doonaa ama ku dagaalgeli doonaa askartiis waxay la ekeeda leeshada taariikhda ku xusan 70,000 oo askari ayuu haystay. laakiin mushkiladda taagan waxay tahay magaalada nimankan hadda ay ku shireen oo ittifaaq ugu sameeyeen waxay go'doon ku sameeyeen magaalo ku dheganeed oo yani magaalada Nibolu naftirkeeda waxaa joogay wakiil ama qaadi ka socday ninka la yiraahdo dowladda cuthmaaniyiinta ka socday. marka qaadigii iyo askartii iyo xukunkiisiiba inta dhinacyada laga hareereeyay baa waxaa lagu sameeyey carqaladeen. marka waagaas hadda telefoonna ma jirin, isgaarsiinna ma jirin, hadda baabuurna ma jirin. waxay ahayd in risaalo waraaqada inta lasugu qoro u liirsasta loo dhexgeliyo qof loo dhiibo. marka waagaas waxaa shaqeynaya fardo in askari inta baxo faraska u fulo oo uu tago boqorkii ugu tago meesha uu joogo ugu yiraahdo meeshii hebel ahayd waxaa ka taagan marxalad dowladda cuthmaaniya dhibaato ku noqon karta. marka Yildirim Beyazidka isaga nin ma ahayn nin degdegay, wuxuu ahaa nin aada u degan, siyaasadiisa degan tahay. dabca duulaankiisii iyo hadafkiisii inuu cuthmaaniyiinta sii faafiyo waa gooni u ahayd, laakiin marnabo kumuusan degdegin hadba warkii meel laga soo sheegay. laakiin haddana risaalada uu usoo diray ninka markaas wakiilka uga ahay gobolkan la yidhaahdo Nibolu dee markii la yidhi nimankii Faransiiska iyo Jarmalkii iyo boqorradii ayaa meeshaas ku haya dhibaato. Yildirim Beyazid wuxuu sameeyey marka in uu dowladda cuthmaaniyiinta askartooda u mideeyo, askartooda uu yiraahdo haye duulaankaas baa la aadaya jihaadkaas. marka Yurub dhinaca bay askarta kaga dagaalamayaan, dhankan Asia dhinaca waa kusoo maqan. Nibolu askar baa loo diray, dabcan waxaa hogaaminaya ninka la yiraahdo Yildirim. marka Yildirim markuu aaday magaalada Nibolu intuusan ninkan wakiilkiisa hadde waxaa meel qasri ama madaxtooye markaas magaalada laga maamulayay
gaaladu inay ku hareereysan tahay uu ku cabursanaa ninka la yihahdo wakiilka ugaha dowladda cuthmaaniyiinta marka ninkaas inuu banaanka usoo baxana way adkeyd in loo tagana way adkeedo nimankan haddii cunaqabateyn iyo carqaladeyn baa lagu sameeyey marka dowladda cuthmaaniyiinta ninkan boqorada waxaa lagu markay yaryaraayinba ama markii la tarbiyeynayo dowladda cuthmaaniyiinta lagu barbaariynin waxa weeye siyaasad ahaan lagu tababarayaa askarinimaa loo tababarayaa nin walba rag ka dhisan ayaa xilka loo dhiibaya marka yildirim intuusan askartiisa gelin dagaalka uusan nimankan oo ku dulayna marka horese ayaga horta wuxuu kalgala dhufaysyada ilaa iyo buuraha xataa qaar baa galay magaalada afartiisa geed buu ku kala wareejiyey isagii laba askari watay intii waadiye u watay buu baxay marka si dhuumaaleysi isagoo dhex maray askartii cadowga ahay inta gees ka maray oo uu wuxuu ugu tegay meeshii qasrigii ninka ku jira waaligaha dowladda cuthmaaniyiinta marka meeshii uu deganaa u yaqaana waa u gargaraacay wuxuu iska warbal xaalka dee ninkaana yildirimna nin sifaadkiisa nin waxay marada afka ujigu xiran yaho asiga qarsoodu ku galay waayo nimankan maysan garan marka yildirim bayazid ninkii wuxuu ku yidhi axwaasha ka waran waxa uu yidhi ninkii kale wakiilka uga ahaa dowladda cuthmaaniyiinta meeshaas magaalada ni la yihahdo nipol xaalkiina waa fiican yahay cunto waa haysanaa askar waa haysanaa laakiin mushkilad tagan waxay tahay nimankan gaalada duulaanka nagu soo ah waa naga tira badan yihiin meel walbana waa naga xayireen waa maxay yildirim marka wuxuu yidhi dhimal annaga waa imaanay askartii waxaa waa daafay ku kala jirtaa magaalooyinka buurihii ku jirtaa wadooyinkay kala xirteen marka nimankana meelna ma dhaqaaqayn waa weerarayna insha allah idinka sii adkaysta wallahi marka yildirim markuu kasoo tegay derbigii uu kala hadlayay uu ku jiro ninka la yihahdo wakiilka ogaa dowladda cuthmaaniyiinta markuu ninka la yihahdo yildirim uu soo noqday oo uu soo baxayay waxaa arkay marka askartii waagaas ninka faransiiska ahaa ee boqorka faransiiska waardiinaysa askartiis meesha joogto ka mid ah ayaa waxaa arkay ninka la yildirim uu sii socda marka askarigii waa uu soo dabagalay ilaa iyo maaragtay cabaar uu soo dowsa laakiin ninkan yildirim hadda nin tababaran buu haye farasna waa watay waa uu kasoo dhuuntay bis raadkiisana waa uu ka tirtiray meesha uma uusan arki karin askarigii markuu waayey yildirim meeshuu ka baxay wuu iska soo noqday meeshiisuu kasoo noqday taliyihiisi iyo boqorkii ninka la yidhaahdo singismud ayuu u sheegay wuxuu yidhi meesha waxaa soo kala udhaa ninka la oran jiray hadduu ilaahay ku oran yahay yildirim bayazid marka sidaas ayuu ku wargeliyey askartii gaalada waa isaarey naftirkooda oo waxay ku talagaleen in hadduu ilaahay ku oran yahay u diyaar garoobaan dagaalkii laga lahaa dowladda cuthmaaniyiinta marka yildirim bayazid dagaalkii afar geesood ayuu ku qaaday nimankii meesha ku jira naftirkooda wuxuu idinkana soo dagaalama oo soo baxa kadib xaalku wuxuu noqdo marka in la dagaalamo maaha wax kale oo markaas shaqeynaan u aysan jirinba adiga gaaladii markii ogaadeen in yildirim meesha uu soo galay oo magaaladii afar dhinaceed ka xiray waxay sameeyeen in maaragta markaasi ay sii dagaalamaan dagaalka intii adkaysan karaan ay sii adkaystaan oo ay sii jihaadaan kadib intuu dagaalka socdo meeshii ay ka cararaan qaar ka mid ah marka nimankii jarmalka iyo faransiiska magaaladaas waxaa kusoo gaaray jab aada u weyn oo ay kala kulmeen dowladda cuthmaaniyiinta uu hogaaminaya ninka la oran jiray yildirim bayazid marka insha allahu tacaala dabcan marxaladaha ay sii kala marayso dowladda cuthmaaniyiinta iyo dagaalada ay gashay iyo nin xukun walbaba boqor walbaba intuu hogaaminaya dowladda cuthmaaniyiinta iyo nidaamku sii kala maray waa ay noo socon doontaa insha allah berito waa ay sii soconaysaa xalqada waxaan u hadli doonaa haddii ilahay xalqada lixaad laakiin yildirim nin taariikhdiisa maanta lagu soo koobi kara daqiiqada maahano waxaa weeye si guud haddaan usoo khulaasadeedno waa nin cimrigiisa ku dhamaystay inuu ku jihaado dowladda cuthmaan yani inuu maaragtay u jihaado naftiisa u horo dowladda cuthmaaniyiinta oo uu ka dhaxlay aabihiis iyo awoyaashiisa sababto asiga dowladdan looguma dhiibin si nabada raaxa leh ayadoo dowlad lasoo dhisay lagu soo rafaaday lagu soo jihaaday oo hadduu ilaahay kurunya lasoo nidaamiyey qaabaysan oo habaysan ayaa isaga loo keenay marka ninka la yidhahdo yildirim haddee isagana meeshiisa buu kasii waday nimankii dowladda cuthmaaniyiinta waa ay sii faafeen dhanka yurub magaalooyin bay sii qabsadeen boqortooyo badan baa issoo jiibaya shucuub badan baa kusoo biiraysay shucuubta hoosuga dowladda cuthmaaniyiinta isla dhankan asia naftirkeedana waa uu ka socday dadaalka marka waxaa socday jihaad afar geesood ah mid gudaha iyo mid banaanka ahba oo markaas uu horkacayay ninkii la oran jiray yildirim bayazid marka yildirim bayazid allah u naxariistay dowladda cuthmaaniyiinta xaaladahaas uu lasoo kal maray juhdigaas soo kal maray iyagoo ay haysato saddex mushkilo oo kaga imaanaysa cadowgii gaalada ahay kaga soo horjeeda mid kale ay kaga imaanayso dadkii isaga maamulayay kuwa qarajaajusinay ka dhex shaqeeyaan iyo dhinaca kale ay ka haysato mushkilad kalen raggan isaga la nasabka sheegtay walaalihiisa ha ahaadaan ilma adeeradiisa ama niman taliyaal hoosoo markaas isaga xukunkiisa hoos imaanayay oo markuu asiga baxayba ka bilaabaya meesha khilaafka marka yildirim bayazid
jihaadkiisii iyo juhdigiisii halkaas ayuu maaragtay kusii waday ilaa markaas uu ka geeriyoodo hadduu ilaahay ku oran yahay 1403 marka waxaa dowladda Cuthmaaniyiinta aan usoo sheegnay laga soo bilaabo 1299kii ilaa iyo 1402 oo hoggaanka Yildirim Bayazid uu yahay maxaan dhihi jiray boqorkii afraad ee dowladda Cuthmaaniyiinta marba marka kasii dambeysa boqol walbaba askarti waa sii ziyaadinayay gobolada uu furnayna waa sii ziyaadinayay dadka soo kasbanaya ama dadka jeclaanaya dowladda Cuthmaaniyiintana aad u sii badanayeen marka waxaa la dhihi karaa waxay tahay maanta ma jiro boqor la dhihi karo dowladda Cuthmaaniyiinta waa uu ka gaabiyay dadaalkii ama dhaxalkii aabayaashiis uu ka dhaxlay ee loo rabay dowladda Cuthmaaniyiinta ee meeshiida uu kasii laba jibaaray juhdigeediina waa uu sii waday marka insha allahu tacaala xalqadeennii shanaad maanta intaan ayaa kusoo gabagabaynaynaa dabcan dhacdooyin badan iyo qisaadkii badan ee laga dhaxlay Yildirim Bayazid iyo xukunka wareejintiisii wiilkiisii insha allahu tacaala berita ayaan uga sii hadli doonaa haddii aan leedmo idinka hadda waxaa weeye waa afurkiina waa la gaana insha allah marka afur wanaagsan ayaan idin leeyahay waa inoo berito iyo xalqadii shanaad insha allahu tacaala ilaahayna maaragta ha u naxariisto boqoradii dowladda Cuthmaaniyiinta ee nidaamkan iyo juhdigan usoo galay in la helo dowlad islaamiya lagu ittifaaco lagu maaragtay badbaado ilaa iyo shucuub isugu jira shacab islaam ah iyo kuwo masaakiina iyo maaragtay marka shucuubyo kala duwan iyo ummado kala duwan ayay dowladda Cuthmaaniyiinta midaysa maanta waxa aan halkan lagu soo koobi kara maano kaliya lama dhihi karo turki bisi hogaaminaysay kurdi baa jiray carab baa jirtay afrikaan baa jirtay ruumiyiin baa jirtay ermaniyiin baa jirtay yahuudiyiin xataa oo waxaa jirta maaragtay dowladda Cuthmaaniyiinta aad u ictiqaadsanaa u shaqeynaya oo maaragtay la jihaaday marka maanta halkan waxaan kusoo gudbina waxay tahay taariikh nololeedkii iyo juhdiga uu la soo maray ninkii la oran jiray Yildirim Bayazid dowladda Cuthmaaniyiinta haddaan xasuusino xukunka wuxuu la wareegay 1389kii wuxuu ka tegay 1402 wuxuuna maaragtay geeriyooday ilaahay ha u naxariisto raallihana ha ka aaday dhammaan boqoradii soo hogaamiyay dowladda Cuthmaaniyiinta iyo una soo gargaaray diinkan iyo dadkan masaakiinta Yildirim uu geeriyooday ama Yildirimka koowaad 8 Maarso 1403 wuxuuna ku geeriyooday magaalada Akshay marka insha allahu tacaala berito waxaynu xeegi doontaa xalqadeennii lixaad waxaan isaga teganaa waxay tahay marka insha allahu tacala isku dardaarmeynaa wanaagga iyo khayrka insha allahu tacaala ilaahay maarata naga aqbalo acmaasha iyo soonkii aan wadno waxa weeye inta bisha Ramadaan dhammaadkeeda waa noo socon doonaa xalqooyin badan baa inoo socon doona marka